السلام عليكم. فضلا share comment subscribe notification وجنبها كلا فرطو like على صاروا واحد كلا سعون كتان جنة تكنولوجيا عصب عالم كقصة غربي واحد كلا كبر الدكان معلومات قصة سنة بكشمة هي السايبر سيكوريتي. militariga caalamka sidoo uu shaqeeyo iyo wuxuu isticmaalaa cayaanka caalamka sidoo uu adeegto iyo halka ka ogaanina waxa loo isticmaalaa in xuduudaha oo kale loo isticmaalayaa waa teknoolojiyad casri ah kaas oo xuduudaha lagu jarayo waxaan loo isticmaalaa barnaamij teknolojiya. cayaanka yaryar waxa loo isticmaali karaa cayaan yaryar cayaankaas oo cunnada waxyeelaya food supply-ga iyo abuurkaba عيان كسر الله استعمال تكنولوجيا ده وحكم إذا يندر ديرته ولا استعماله دعسيها أي حق عيان كان يرى الكيسان وعندها أبغى فكرين وحلا استعمالات بساسيد وحلا استعمالها إن فيروس كبيان ولو ترك لو دمكنا لو بديو تكنولوجيا صحوا استعمال دمتريها ودمنا حرمري أي أحد استعماله برنامج كان بستيجا وعيان معين. نمبر كسجالات flying missiles سند عركة هذه أركيس اللي قد تورايو هذا وآلات عصرية أو واحد برويسة لما تابشوا مدة لما توريس هذا اللي قد تورايو هذا إذا اللي قلنا فنايو فقط الكاملة لكن آلات عصرية أو لا يابله أو حساسات تكنولوجيات لكن كيس آلات ميليتري عصرية. flying missiles هو نوع لوسو فرسمي سيفود بالكستا وعلى صو صاري كرا إلى شنبقل وفائدة ولا آلة عصب ميلتريكا وأنا آلة عصرية ولو فانا يبقى كسر لك كميد وأنا آلة ميلتري. نمبر كسيدة ميكرو سانك وآلة دولة الأمريكان كي يخوض من يستي آلة داس وعصريسان على داس من يستحل من هذاك شعاع كفريسو ونسو أدكيسين كي نغفكا هدي على داس قواتنا ومجروبين ساونس هدي قواتنا قفكا أمي يرانيا أقول وكفكرو أمو يرادو كي بدباد مجروبين كان وآل قفكا حدي كساريا باورها وذا ما أحكرها وذا قفكو سنعود يرانيا هرتاقنا هذا وعلى دقالك الغطرة قلي وعلى ضد المقدار ده وقت ده نصوص على أمريكا ونستعماره radioactive شو عرف الغفرة بس إنه حكيني قف سنة ودي من تاجنا هذا عرضاً أو مجرد كا وعرض أذكر حريه وقف قال لي سو حتى بعورة تصوص على بعور كا قلق الكرديس وعرض تذكر قلق الكرديس نمبر كتردوات وإن إلى بحين الخطي علم بارس لحد إيمن وحوين كنجيلين ده أولا دعوضه هرمان تيدو وهي لتهاي شقادة آد أهرمرسن إنا عقيدة مدى وآلت دبعسن هلتان كيدا لوغة تلقلي أدكا حوريان كأه يا عالم شينتا وحي عقيدة مدى كعاون إساء وإلى إساء إنرتي وحينا لا دهي شيتو waxay qabanaysaa adigoo taagan inaad isticmaasho dareen laga shakinayo aaladda cusub waxay u diraysaa ciidamada aaladda cusub miinta waxay awoodaa inay ka caawiso dhaqdhaqaaqa sida u qaadaan waxa culus ciidamada waxaa loogu tijaabiyey 7 askari waxayna leedahay ilaa 10 mayl waxayna qabanaysaa haay waxaana loo aksisgaraynayaa قواشة أود إن لا يريو واحد استعمال كشنة مغلقيبة سيدا دينا عصبرك فوق ومد فضود إن لا دولة وريد اعترك اللي وريد اعترك ليه فانتوم اكسبريس waa space craft lagu ilaalinayo
sirta la daawado xusuusna meesha the phantom express halkaas waa meel maskaxeed oo sir ah lagu rajaynayo in ka duuraan 2020 xoogaa cadad leedkeedu waa oo tiknoolajiyadeed taasoo ku dhisan mar adke electricity hawada ugu weyn waxay ka dhisan tahay in lagu barto laguna qaato si dhaqso ah iyadoo waa walaac weyn qalab ah maskaxeed mustaqbalka waa meel degdeg ah waana satellite yar phantom express waa meel laga yaabo inay ka kacaan mashiin kharashaadku waa lagu socodsiinaya phantom express خاص kaasoo ay bixin doonto dowladda guddiga macaamiisha aad aragtida kharashaadka lagu marinayo spacecraft-ga waa wada shaqaynta point to US horumarinta cilmi baariseed iyo fadhiga projectigaba robotkan cusub waa robot loo nashqadeeyay in wax loogu qaado annaga markasta waa wax saddex goobtiis waa square inuu caawiyo system aruurin injineeriyeed waxaa loo injineeriyey derbi dynamic ah waxaana projectigan asaasi waxaana maalgeliyey maraykanka markasta waa saddex xajmigu 400 oo xuduud ah wuxuuna shaqayn karaa 24 saac isagoo isdaba joog ah wuxuuna awoodaa inuu ku raaco ayadoo la kaxaynayo kana helaya GPS-ka awoodiisu waa military technology isagoo u dhaqaaqaya si waxtar leh qaadanaya 40 oo agab ah kaligiis agab number 4 mesh one waa secret military technology waa aalada cusub ee secret military technology wuxuu leeyahay noolal cusub dhaqdhaqaaq kasta oo dhulka waana qayb ka mid ah robotka wuxuuna waxyeelayn karaya diyaaradaha sayskiisu wuu yaryahay projectigan waxaa dahaaday MIT waxaana xayawaan aad u yar lagu istaagi karaa aan jabaynin buris ugu garaaci kara laguna talagalay in wax lagu waxyeelaya goobaha waxaana adeegsada militariga metronka amushonka number 3 laser kuwa teknolojiyad casri ah saldhigga hawada wixii gantaalaha waxay yihiin dhacdooyin badanaa gantaaladu waa difaac sax ahaantii gantaaladu waxaa laga dhigtaa qalab difaac sida F-15 diyaaradaha gantaalada xambaara eriyada aan garan karin ayaad ku arkaysaa laakiin habkan taariikhda difaaca may yeelan karto waxtar gantaalada teknolojiyadeed ee sii kordhaya ganshaandhigga waxay fiirinayaan isbeys la yaab leh meesha hawada waxaa laga yaabaa laserka inuu wax yeelo qalab gantaalo hore ah meesha laserka waa number lamaano oo ah aanan haysanin runtii gudaha wax ku ool ah oo burburin laser ahaan qanacsanaanta daqiiqadii serverka waxaa burburineed laserka wuxuuna ahaan doonaa awood buuxda laserka shaqadiisu waa wax markasta la heli karo sidaa awgeed waxay ahaanaysaa mid difaac isaga si free ah $1 million loogu deeqay in lagu horumariyo si loo raadiyo saldhigga hawada sare ah laserka iyo si loo iibsado 2023 waxaa rajaynayaa wareegta in lagu soo kordhiyo shaqada tani waa teknolojiyad la horumariyay
2 hubka hypersonic waa hub la hormariyey si sir ah wadamo kala duwan oo caalamka ah. wadamada saxda ah in badan waa kuwa hormariyey laakiin waxayba keeneen hypersonic China iyo United States hypersonic weapon iyo missiles waa kuwa awood u leh gobolka lehna xajmi shanqad haddii lagu guulaysto hypersonic. hubku wuxuu awoodi doonaa inuu ku safro jawi degan iyo mid saraba wuxuuna ahaan doonaa hab buuxo ku wareego shan waqti oo degdeg ah. sawaxankiisu wuxuu ku fidayaa dhammaan wareegyada halkii mayl ilbaqsiga hypersonic weaponka waxay ahaadeen kuwa la hormariyey cruise missiles iyo hypersonic cruise missiles waxay ahaanayaan kuwa awooda inay ku safraan joog sare 100,000 oo feet waxayna isticmaalayaan saami nidaamsan waxaan lagu yeeraa scramjet. gaadiidka fudud ee hypersonic wuxuu leeyahay internet ahaan lahaa Playstown waxayna ahaan lahaayeen mid sare. isbedelka cusub anji target loogu dhufanayo waa sir weyn ilaa qarankaas ma ahane xawaaraha isbedelaya safarkiisa hypersonic weaponka midda xigta waa rasmi awood furaad miyay jiraan marka loo eego hadda goobahooda difaaciyo noocyo kale oo hypersonic ah cusub. numberka koowaad flybird waxay u taagan tahay drone. waxaa jira horumarin military technology ay mas'uul ka tahay England. flybird waxaa loo horumariyey ilaha diyaaradaha dagaalka warbixin ka keenan waana jira laba qorsho example markii loo daaro cayayaanka ka hortagaya. diyaaradaha waana cayayaan yar waxayna iska dhex qarin kartaa real estate waxay isku dhex qarin kartaa real estate way dhici kartaa in laga hortago waxaana laga controlaa sizekeeda waana mid meel kasta u diri karto. waxayna caddayn u tahay aaladda cusub ee militariga waana mid waxa laga diri karo waana la heli karaa baalasha iyadii indhaheeda waana inay suurtagal si dhaqso ah u duusho iyada oo u gudbinaysa ciidamada isku xirkooda. waxaa la sii deynayaa remote control waxayna ilaalin kartaa awoodda laga cabsanayo iyo walxaha qarxa waxayna flybirdka u gelaysaa dhismaha iyo agagaarka cadowga si dhaqso ah. waxaa lagu ogaadaa isbedelka ciidamada goobahooda waana weli waxaa maalgelinayo company military technology ah.